Bismillah. Waxaan ku guda jirnay biology fasalka koowaad ee dugsiga sare. Waxaan ku jirnay cutubka koowaad. Waxaan ku baranaynay introduction. Casharka koowaad iyo cashar labaad ayaan soo qaadanay. casharka labaad waxaan ku soo qaadanay importance of studying biology. Muhiimadda biology-ga barashadiisa uu leeyahay ayaan ku soo qaadanay iyo characteristics of living things, astaamaha noolaha uu leeyahay. Kaasaan ku guda jirnay noo dhammaanin. Waxaan soo qaadanay cellular organization, waa qaabeynta unugga, iyo nutrition, nafaqowga ama nafaqada unugga, metabolism iyo dheefsashada. Guda jirnaan haddana waxaan sii gudagalaynaa marka sii wadaynaa characteristics. Growth, noolaha way koraan. Markii ustaad aan dhahayno growth, noolaha way koraan, noolayaasha ma koraan waa macna. Cagsigeeda maxaa noolayaasha ay ma koraan. Waxaa kala soo qaadnay cellular organization, kooxeynta unugyada. Noolayaasha unugyo kooxeyn ah ma lahan. Nutrition soo qaadanay oo nafaqo. Noolayaasha way quutaan, noolayaasha laakiin ma quutaan. Metabolism way dheefsadaan noolayaasha, noolayaashana ma dheefsadaan. Marka growth waa ayaan kasii ambaqaadaynaa casharkeena. Growth waa koriinka. You are familiar, waxaad taqaanaa qoyskaada with the growth ay sameeyaan koriin of a baby. Cunuga intuu wuxuu isku bedelayaa an adult, qof weyn oo qaangaar ah. Similarly, si la mid ah, seed grow, iniinta way kortaa, intuu waxay isku bedeshaa plant, geed. Growth waxaa lagu dhihi karaa qeex ayaa lagu dhihi karaa growth. Waxaan qeexaynaa marka growth is a process, waa hab of irreversible increase in bulk. Waa badsasho ama badnaan koror aan dib loo soo celin karin. Irreversible maxaa waa aan dib loo soo celin karin waa. Irri waxaa waa not ayuu taagantay ayadaas. And your complexity kakanaan ama isku cukunaan of an organism ee noolaha. All living things, dhammaan noolayaasha oo dhan. All living things, dhammaan noolayaasha oo dhan grow way koraan. Whereas halka kale non-living things noolayaasha do not grow, ma koraan. Okay, numberka shanaad kaas wuxuu ahaa numberka afaraad. Wili waxaan ku guda jirnaa characteristics of living things. Excretion, noolayaasha waxay sameeyaan qashin saar. It is the process, waa hab of removal oo looga saarayo of metabolic waste materials, walxaha wasaqda ee la dheefshiiday. Meesha waxaa laga wadaa kuwa la dheefsan waayo oo la dheefshiidi waayo ayaa removal, waa la saaraya from the body, waxaa laga saaraya marka jirka. Accumulation, ku aruurida of waste material, walaxda wasaqda oo inside gudaha the body cells ee unugyada jirka. Is harmful, waa waxyeelo ay ku leedahay oo toxic oo sidoo kale loo yaqaano oo sun to all living things ee dhammaan noolayaasha oo dhan. Waxaa laga wadaa accumulation, ku aruurida of waste material, walaxda wasaqda ama walxaha wasaqda oo inside the body cells ee gudaha unugyada jirka. Is harmful, waa khatar, waa toxic ay sidoo kale loo yaqaana sun to all living things ee dhammaan noolayaasha oo dhan ay khatar ku tahay haddii ay ku buuxsamaan
meesha das haddaba it is constantly removed si joogto ayaa loo saaraa from our body oo jirkeena ayaa looga saaraa in the form qaab of urine ee kaadi sweet dhidid and carbon dioxide iyo hawadan loo yaqaano carbon dioxide hawada ka soo bixaysa ayaa loo yaqaan carbon dioxide in the case xaaladda of plants ee dhirta carbon dioxide and hawadan loo yaqaan carbon dioxide and iyo water fibers uumibaxa ee biyaha are removed looga saaray from the bodies are removed waxaa looga saaraa from the bodies dulduleelada oo bodies dulduleelada oo ama sida loo yaqaan stomata oo present xaadirka ku ah on the leaves ee caleemaha. Numberka 6 reproduction noolaha waxay sameeyaan taran. Haddii aad baratay markii noolaha qashin saar ay sameeyaan ma noolayaasha qashin saar ma sameeyaan maya qashin saar ma sameeyaan. Okay, reproduction ma noolaha taran ay sameeyaan awda ma noolayaasha taran ma sameeyaan maya taran sameeyaan lahayn ma noolayaasha waabe kursi inta soo gadatay dhowr kursi ku noqon lahayd no miis inta soo gadatay dhowr miis ku noqon lahayd. This is the ability reproduction waxaa numberka 6 maxaa waay taran waa. This is the ability. This is tani waa the ability awood of all living organisms noolayaasha oo dhan to produce ay soo saaraan young ones jiil yaryar ama unugyo yaryar of their kinds ee lamid ah ama ku nooc ah. For example tusaale a hen doorada lays egg waxay dhashaa ama waxay dhigtaa ukumo which hatch wayna fiiqdaa into chickens wayna soo saartaa doorooyin which grow wayna koraan into waxay noqdaan hens ay noqonayaan oo dooro or amise roosters ay noqdaan diiqaq. Similarly si la mid ah a mango tree geedka cambaha produce wuxuu soo saaraa fruits miro which bear seeds kuwaasoo marka loo beeray inin ahaan which gives rise waxayna soo bixiyaan to new mango trees geedo cusub oo camba ah. But laakiin non-living things noolayaasha such as sida chair kursiga or table miiska cannot reproduce waxam soo saar dib waxam soo saar miis intaas soo gadana kursi intaas soo gadana ayaan badan lahayn haddii ay wax soo saar lahayn samaan. Respiration numberka 7 maxaa respiration way neefsadaan noolayaasha aan iyo gaseous exchange iyo kala bedelashada gaasiska ay sameeyaan umnana oxygen ay qaataan carbon dioxide soo saaraan waa kala bedelashada hawada lagu sheego noocaas ma noolayaasha maxaa marka ma neefsadaan gas exchange ma sameeyaan. It is the process by which living things noolayaasha oo release ay ku sii daayaan energy tamar from iyo ka keensanaya the organic food substance walhaha cuntooyinka organiga ah and utilize and loo faa'iideysanayo this energy tamar ahaan to perform si loo hirgeliyo various activities shaqooyinka kala duwan. Anaha laga wadaa noolayaasha waa neefsadaan say u neefsadaan markii ay si tamar ay u helaan waxay si ay tamar ay u helaan waxay quutaan ama waxay ka faa'iideysanayaan cuntooyinka organiga ah ay ka faa'iideysanayaan si loo hirgeliyo marka shaqooyinka kala duwan.
gaseous exchange kala bedelashada gaseska waa oxygen iyo carbon dioxide lewa is a process waa hab waay whereby halkaasoo is a process waa hab whereby halkaas oo respiratory and lagu neefsanayo oo gaseska oxygen loo yaqaan oxygen aniyo carbon dioxide iyo carbon dioxide basis iyo marayaan across kana gudbaya respiratory surface oogada sare ee neefsashada sida dalankiisa sambabada aniyo gillis iyo waafiyada. lankiiska waxaa leh xayawaanada noocyadooda kala duwan sida humaniska geela lo'da ayaa kamid ah aniyo gilliskana waa kuwa oo badda ku nool waay sida malayga. Numberka 8 movement xayawaanada way dhaqdhaqaaqaan. kuwa kale maxaa waay ma dhaqdhaqaaqaan nooleyaasha living things nooleyaasha show movement waxay muujiyaan dhaqdhaqaaq. if a day maalin kasta you see waxaad aragtaa the animals xayawaanada birds shimbiraha insects cayayaanada and human being iyo bini'aadamka moves way dhaqaaqaan from one periscope ay ka dhaqaaqaan to another periscope kale ay u dhaqaaqaan. This type noocan of movements ee dhaqdhaqaaqa ah is called waxaa loo yaqaana locomotion loo yaqaana waa dhaqdhaqaaq. Animals xayawaanada move way dhaqaaqaan for two main reasons laba sababood ee ugu muhiimsan ay u dhaqaaqaan ama laba sabab ay u dhaqaaqaan in search inay raadiyaan of cunto and iyo to escape inay ka cararaan from enemies cadowgooda ama waxa waaye inay ka gabadaan ama ay ka dhuntaan from enemies cadowgooda. sababtay ugu cararaan maxaa si nashadooda ay ugu badbaadsadaan. most plants badanaa dhirta are fixed waxay ku go'an tahay into the soil ciidda. They are unable ma awoodaan to carry out locomotion inay meel ka baxsan ay u qaadaan. Waxaa laga wadaa inay meel ka qaadaan meel kale ay geeyaan ma awoodaan but laakiin show movement waxay muujiyaan dhaqdhaqaaq. waxaa laga hadlayaa dhirta ee laga hadlayo mar walba waxay ku xididaysan yihiin ciidda ay ku xididaysan yihiin. Numberka 9 irritability arin ama dareengelin. Irritability is the ability waa awood waay of living organisms ee nooleyaasha to detect ay ku ogaanayaan and respond ayna ugu jawaab celinayaan to a stimulus ee carinta ama nashaadinta. waa changes isbedeladaha in their surroundings agaaraha ama hareerahooda. carinta maxaa laga wadaa marka waxaan ugu hareereysan waa isbedeladaha ku dhacay jawaab celintooda oo tusaale in cold weather cimilada qabow waxaan xiranaa woolen clothes dhar dhagoor ka samaysan. woolen maxaa waaye dhagoor waay dhar dhagoor ka samaysan. if haddii we touch aan taabano something hot shay kulul by mistake aan ku qaldoono we respond quickly waxaan ugu jawaab celinaa marka si dhaqso ah ama si degdeg ayaan ugu jawaab celinaa by withdrawing anagoo kala soo laabanayno awa handis iyo gacmeena. during inta lagu guda jiro daraft abaarta roots xididada of plant ee dhirta ama of plant geedka grows way koraan faada si qoto dheer ayay u koraan downward hoose in search iyagoo raadinaya of water biyo
maxaa marka waa dareen gelin ama carin. nooleyaasha maxaa waaye waxay sameynayaan aan dhahnay marka jawaab celin ayay sameeyaan. ma nooleyaasha laakiin ma sameeyaan maya. alwaaxad gubba maya maka cararaya dabka marka. laakiin nooleyaasha maxaa marka haddii aad gubtid maxaa way ka cararayaan. numberka 10aad life cycle meerto nololeed ama wareega noolaha uu sameynayo. cycle haddaad maqasho waxa meel ka bilaabanayo meeshuu ka bilowday haddana kusoo laabanayo ku dhamaanayo waxaa loo yaqaanaa life cycle loo yaqaanaa. living things nooleyaasha flow waxay raacaan a life cycle meerto nololeed ama wareeg nolol. they start waxay ka bilaabaan their life noloshooda from a single cell hal unug ayay ka bilowdaan. an iyo flow waxay raacaan the path wadada of growth ee koriinka reproduction taran. an iyo death way dhintaan. oo micnaha waxaa laga wadaa marka koowaad labada noole oo lab iyo dhadiga ah waxay isku darsanayaan sperm iyo ovum oo shahawo iyo ugxan. shahawada uu soo daayo labka ugxantana soo daaya dhadiga. dan kadib marka ay midoobaan waxay soo saaraan zygote wax loo yaqaano. oo zygote-kaas ayaa loo yaqaan marka single cell. dan kadib zygote-kaas ayaa badanayo markii uu bato dan marka waa uurkujira soo saaraya. uurkujirkii waa sii hormaraya. uurkujirka loo yaqaan fetus ayuu soo saaraya. dan kadibna fetuskii ayuu wuxuu soo saaraya marka dhalaan ama cunug. koraya cunugii ay koraya markii uu koro cunugii oo haddana banaanka ayaa loo saarayaa. dan markuu sii koraya koriin kale ayuu sii maraya. dan markii uu koro qaangaar uu noqdo kadib maxaa waaye marka taran ayaa soo saaraya. tarankii haddana waqti ayuu leeyahay. waqtigii markuu dhamaado dan kadibna dhiis uu dhimanayaa cunugii. tusaale qur-aanka ileen waxaa sayniska waxaa laga soo minguurilay waa qur-aanka suurat almu'miniin wuxuu ku leeyahay walaqad khalaqna al-insaana min sulaalatin min diinin thumma jacalnaahu nutfatan fi qararin makiinin thumma maxaa waaye khalaqna nutfata waa kana marka candhuuf calaqatan fakhalaqna calaqatan maxaa marka waa injir fakhalaqna calaqata mudqadan maxaa waaye cad hilib ah. فخلقنا مضغة عظاما هذا اللفة ينقلنا فكسونا العظام اللحمة ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مركا فتبارك الله أحسن الخالقين. مركا ثم إنكم بعد ذلك محاول لميتون. هذا وقت من يسمع مركا ليث معه وكنا لميتون. سورة الغافرة إذن آيات 67 هو الذي خلقكم من تراب. تراب هو آذن ونبي آذن صلى الله عليه وسلم ثم من نطفة ثم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وكان أيضا هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. أوكي marka aayada quraan ay ka hadlaan hadiisin way ka hadleen marka saygoodka oo markii isku bedela oo aan shahwadii iyo xanti markay isku tagaan waa candhuuf waaydan kadibna way sii badanayaan waa 40 maalmood waay. ثم من نطفة نحاوي 40 مالمود عندوف ayuu ahaanaya 40 maalmood waxa calaqa 40 maalmood naxawaay mudqa saasi ku soconayaan kadibna ruuxda ay lagu afuufaya. The period xilliga the period muddada oo dayr inta lagu guda jiro aan organism complete oo ku dhameystirmaayo kuwaas ku dhameystirmaayo noolaha
it is life cycle meertanoleedka is called waxaa loo yaqaana the life cycle loo yaqaana life cycle ayaa loo yaqaana ama life span the period muddada oo during inta lagu guda jira which an organism completes ku dhameystirmayo noolaha it is life cycle ayaa loo yaqaana meertanoleed is called waxaa loo yaqaana the life span. Okay, meeshan su'aal ayaa ku hoos qoran basic on your previous knowledge iyadoo ay ku saleysan tahay aqoontaadii hore. What are difference waa maxay kala duwanaanshaha between u dhaxeeya living noolaha and non living things in noolayaasha. 1.5 waxaan ku baranaynaa comparison between plants and animals. Waa isbarbar dhigitaanka u dhaxeeya dhirta iyo xayawaanada. The differences kala duwanaanshaha oo between u dhaxeeya plants dhirta iyo animals xayawaanada are easily noticeable. Si fudud ayaa loo ogaan karaa ama loo dareemi karaa. The table below shows waxaa lagu tusay shaxda hoose ama jadwalka hoose waxaa lagu tusay the unique way properties astaamaha oo gaarka u ah for each of them mid kasta oo iyaga ka mid ah oo dhirta iyo xayawaanada. Table 1.2 shaxda ama jadwalka 1.2 difference kala duwanaanshaha between u dhaxeeya plants dhirta iyo animals iyo xayawaanada. Plants ayaan ku hormaraynaa dhirta oo number 2 plants dhirta are general guud ahaan roots waxaa lagu xididay in one place hal goob and iyo do not move ma dhaqaaqaan on their own iskooda meel intay ka dhaqaaqaan meel kale uma dhaqaaqaan. Numberka kale oo animalska oo number 2 oo kasoo horjeeda isagana most animals badanaa xayawaanada waxay leeyihiin the ability awood to move ay ku dhaqaaqaan from one place goob to another goob kale. Numberka labaad oo dhirta plants dhirta contain waxay ka kooban tahay chlorophyll cagaariye bilcagsi oo animals xayawaanada do not contain ma ka koobno chlorophyll cagaariye dagaari lahaan leed wax walba iska samaysan leed Soomaan. Numberka saddexaad oo dhirta plants dhirta can make waxay samaysan karaan their own food cuntadooda das haddaba they are autotrophic waxaa loo yaqaanaa kuwa cuntadooda samaysta bilcagsi animals xayawaanada. Numberka saddexaad animals xayawaanada cannot prepare ma diyaarsan karaan their own food cuntadooda hence haddaba are heterotrophic ayaa loo yaqaana kuwa cuntadooda aan samaysaninin. Okay, numberka afraad plants dhirta respond slowly si tartiib ay ugu jawaab celiyaan to change isbedeladaha in their environment ee deegaankeena ama ee deegaankooda. Plants dhirta respond slowly si tartiib ay ugu jawaab celiyaan to change isbedeladaha in their environment ee deegaanka. Numberka afraad oo plantska animal numberka afraad oo bilcagsi oo plants dhirta ah iyo xayawaanada animals xayawaanada respond waxay ka jawaab celiyaan to change isbedeladaha in the environment iyo deegaanka. Macnaheedu waxaa laga wadaa si dhaqso ayay ugu jawaab celiyaan isbedelka deegaanka. Okay, numberka shanaad oo dhirta plants dhirta laag wuu ka maqan yahay complex excretory organs xubnaha qashinsaarka ee kakan ama isku cukan oo tirada badan qashinsaarkooda xubnooda markuu yar yahay marka ma badno. Numberka shanaad animals xayawaanada half waxay leeyihiin complex excretory organ xubno qashinsaar ee isku cukan ama kakan ay leeyihiin. Okay, chapterkeena oo koowaad halkan ayuu noogu dhamaaday galaaska koowaad ee dugsiga sare ee biology. Chapter koowaad waa introduction ayaan kusoo baranay waxaan kala kusoo baranay what is biology waa branch of biology oo importance of the study in biology waxaan kala kusoo baran characteristics of the biology
iyo casharka ugu dambeeyay comparison between plants and animals. Okay, halkaan ayaan ku ekeenayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. oo jabtarka labaad ayaan u gudbinaa duulayd insha Allah.